السلام عليكم. waxaan ku duubi doonaa telnetka soo isticmaali doona telnet waxa loo isticmaalaa in lagu dhex galo switchka ama routerka. Waxaan adeegsan doonaa switch waxaan u baahanahay sidoo kale computer kadib waa isku xirnaa waxaan isku xirnaa straight maadaama ay yihiin different device waxaan isku xiray IP address ayaan soo siinayaa PC waxaan siinayaa 192.168.1. waxaan siinayaa waxaan tagayaa kadib switchka CLIO kana waxaan enter enable configuration terminal conft okay kadib waxaan abuurayaa VLAN interface VLAN VLAN ka IP address ka doon wahay aan siinayaa dot 2 aan leeyahay marka IP address 92.168.1.2 aan siinaysaa subnet maskiga 255.255.255.0 waxaan leeyahay no shutdown yani iyadana ma sudami waxaa abuuraysaa marka telnetka على اللاين virtual terminal inta badan waa 0 ilaa 15 waxaa sameynaysaa password oo sameynaysaa password waxaa ka dhigaa password just jamhuuriya weli waxaan leeyahay markuu yahay login qofku soo sameynayo waa inuu kusoo galaa intaas exit da marka haddana exit kale save garay rw okay kan naftiisa waxaa u baahanahay inaan password ku xirno isagana terminal passwordka ku xiraysa marka waa password console password ah oo fiilada lagu xiraa marka la line con okay 0 password ama enable password just 1 okay password ku xiraysa isagana exit okay أنا أقدر مركا الكمبيوتر كا كنت عندنا قيمة CMD عن حاجة لنا مركا السويتش كنا كسر حاجة لنا في الكمبيوتر كحلنا مركا تلنت يدرس 192.168.1.2 okay أقول باسورد كلي باسورد كتلنت كده just okay على enable ولا باسورد حق السويتش كا هكذا just 1 okay كده مركا فريق يسوي ساكرتا configuration terminal سوي جديد وهي بس خاب كاس أي لو ذكسا تلنت